bismillahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. dhammaan asxaabta ku xiran Abeka Technology waa walaalkiin oo idin leh cashirkeenii tutorialka oo ku saabsanaa applicationka PicArtist iyo taleefankaaga Android-ka Part 7 Part 8 hore usoo qaateen. maanta waxaan idin haynaa Part 9 wuxuuna ku saabsan yahay sida aad sawirkaaga splash aad ugu dhigi lahayd qaab aad iyo aad qurux badan oo haddana professional ah. intaana cashirka kaaga hordhicin please ila daawo. haddii aad channelkeena ku cusub tahay kusoo dhawow inaad subscribe dhahdo gambalaalkan aad furato si video walba aan soo dhigno uu kusoo gaaro yaana warka ugu daalin please cashirka ila ugu horeyntii waxaad soo furi doontaa applicationka PicArtist. sida markaad usoo furtid kadib waxaad imaan doontaa calaamada balasta. calaamadan balasta markaa imaadid kadib waxaa imaan doontaa Pixcanvas markaa imaadid adiga tiradii aad jeceshahay ka dooro kadibna calaamada filartaas ku dhufo. kadib waxaad sameyn doontaa sawirka aad rabtid inaad splash aad ka dhigtid ayaa soo qaadan doontaa insha Allah. sawirka ayaan soo qaadan doonaa waa sawirkan ayaan ku wadnay cashirkeena. sawirkan ayaa soo qaadan doontaa sawirkan markaad soo qaadid sidaas markaa ka dhigtid markaa sidan aad ka dhigtid kadib meeshaas ayaa imaan doontaa. kadib waxaa kusoo dari doontaa empty layer adoo joogtid ayaa waxaa sameyn doontaa calaamada editka saad u taqaanid kadibna waxaa kusoo dari doontaa splashka meeshan ayuu noogu jiraa waa kaas splashkaas linkigiisa waxaad kusoo dhigi doonaa descriptionka hoose ama sidaad u taqaanid videoga hoostiisa insha Allah bismillahil kariim. meeshaas ayaad ka degsan doontaa. haddii aad channelkan ku cusub tahay please subscribe dhaw gambalaalkan furo si video walbo aan usoo dhigno aduu kusoo gaaro aadna noqotid daawada ugu hore videos daawad insha Allah. cashirkeena aan sii wadano kadib meel banaan ayaad ku dhufan doontaa kadib waxaad sameyn doontaa sawirkan ayaad imaan doontaa kor ayaad dhigi doontaa. markaas sidaas kor u gees sawirka kor adoo taagan ayaa waxaa imaan doontaa meeshan filarta hoose kadib waxaad ka dooran doontaa screen. sidan markaad yeeshid sawirka waa ujeedaa qaabka kasoo korbaxay ujeedid laakiin waxaa laga rabaa inaad la sintid. okay meeshan ay ku qoran tahay sawirka imaaw kadibni transform markaa dhahdid waxaa sameyn doontaa sawirka ayaa qaab qurux badan u sameyn doontaa insha Allah. waa fudud yahay cashirkan sidaan jeclahay casharadii hore uu ku fudud yahay. haddii aad channelkan ku cusub tahay please kusoo biir noqo asxaabta channelka. haddii aad jeceshahay inaad sawiro aad edit gareysid inaad waxyaalo kale aad samaystid diyaar ayaa lagu leeyahay waa lagu caawi doonaa insha Allah. channelkan wuxuu u shaqeynayaa in uu asxaabta lagu caawiyo insha Allah bismillahil kariim. cashirkeena maanta halkaas ayuu ka egyahay. haddii aad u baahan tahay waxaad sameyn doontaa in aad sii qurxisid meesha filartaas ayaa imaan doontaa edit image aad leedahay kadibna waxaad kasii xulan doontaa tools kadib adjust ayaad tagi doontaa brightkaas waxyar ayaad ku dari doontaa xoogaa yar ayaad ku dari doontaa. saturationka muhiimada dhan kan waa saturationka sawirka wuxuu kaaga dhigaa qaab professional ah. kadib haddii rabtid temperature oo ku darsan kartaa shadow oo ku darsan kartaa insha Allah bismillahil kariim. maanta cashirkeena halkaas ayuu ku egyahay tan iyo intaan ku kulmi doono cashirka xiga waxaan idin leeyahay haddii aad channelkan ku cusub tahay please subscribe dhaho gambalaalkan furo si video walbo aan soo dhigno aduu kusoo gaaro aadna noqotid daawada ugu hore videoga waa isdaawado. haddii aad ka heshay videogan please like saar haddaad ka helin dhankaaga waay ama dislike dheh asxaabtaadana la sii wadaag. ha iloobi inaad
sii share gareyso insha allah bidnillaahi kariim. Tan iyo intaan ku kulmi doono videoga xiga mise casharka xiga waxaan idinkaga tegi doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti dambe oo xiiso leh isma dhaaf, sidaas iyo nabadgelyo.